Guddi Hoosadka u qabilsan Golaha Wakilada Ilaalinta iyo Dabogalka Hantitada Qaranka Somaliland ayaa kulan aqooneed isugu jira dood iyo falaqayn dheer u qabtay ardayda jaamacadaha, ururada bulshada iyo kuwa haweenka. Kulan aqooneedkaasi oo ku saabsanaa sidii loo maamulay miisaaniyad sanadeedkii 2018. Kulankaasi oo ka dhacay Hotel Cafe ee magaalada Burco ayaa ugu horeyntiiba waxa madashaasi ka hadlay gudoomiyaha Guddi Hoosadkaasi Siciid Maxamed Cilmi iyo gudoomiyaha ku-xigeenka Maxamuud Ismaaciil Xasan Baday iyo Warfa oo ka tirsan xubnahaasi waxayna bulshada la wadaageen habkii loo maamulay miisaaniyadii sanadkeenu ka soo tagnay ee 2018 waxaana kamid ah hadaladoodii maxay tahay sababta dadweynaha loogu soo bandhigayo xisaab xidhka lacagta la yiraahdo cashuurta ee miisaaniyadda lagu salaynayo meelaha ay gelayso adeega meelaha ay gelayso ma aha iskama laha madaxweynuhu wasiirka maaliyadda ma laha baarlamaanku ma laha idinka leh arinta ugu yaabka badan ee qof kastoo mutacallim maskaxdiisa ku soo dhacda ama dadka deegaanka inooga yimaado ee dunida kala soo arkay isuma haysataan lacagtan inay idinku leeyihiin waa inaad u aragtaa lacagtii adigu aad lahayd ee jeebkaaga ku jirtay هاي إيه الله بيوقفه سيدي أبحثي إلى جيس هل كان وحين يسقوني إيمان إلى جيجنا وكلية أنت اللي كسب حان صابت أنو أجو عن سنة إلا يسكون يحضروا ضد متعلمية يضد أرغب عادي كسرة وحوي يقف كستو تكس بيره عشان بحياة رأيي سنة halkan waxaan ku soo bandhignay maanta xisaabkii 2018 xisaabkaas wuxuu sawir guud ka bixinayaa miisaaniyadda qaranka wuxuu ka kooban yahay in halkan oo arki doontaan audit findings and recommendation oo reportkii auditku maxaa baaritaanku sameeyay iyo maxaa ku raacay talooyinkiisii wuxuu ka kooban yahay arki doontaan wasaaradaha iyo hay'adaha baaritaanka lagu sameeyay وعكروا أرك دونتان مشاريعي يوحي سنة كان محاك رادي فرون بروجكتس كتير بعد يجي دونتان كوة استوت هذه دونتان يكملت وحاول نران بين بعضنا decentralization وأنا بعمل عليه بالشغل مولا يعني والله صور قوي هي مشاريع اللي هو فري إنتاج محاك رادي دولي تركودي هاي سيد وهرو check and balance وهرو marwalba waxaan dabagalaa anagu hanti dhowraha xisaab xidhka uu sameeyaan baadhnaa anagu oo la eegnaa marka xisaabta waxa soo xidhan waa hanti dhowrina hay'adaha qaranka dood iyo falaqayn dheer oo lagu sameeyay sidii loo maamulay miisaaniyad sanadeedkaasi waxa iyaguna madashaasi ka soo jeediyay hadallo ardayda jaamacadaha ururada bulshada iyo kuwa haweenka kuwaasi oo ka soo jeediyay talooyin iyo afkaar kala duwan arintaasi waxaana kamid ah hadaladoodii qodobada runtii aan halkan ku soo qornay waa qaar badankooda laga hadlay laakiin wixii xoojin u baahan u baan sheegaynaa ka koowaad oo ah in xisaab xidh caalami ah la sameeyo oo system sax ah la raaco inta labaad si wax loo saxaya mar walba siyaasad wala dejin kara laakiin waxa ka qiimo badan fulinteeda sida ugu wanaagsan wax loo fuliyaa dunidan horumartay hada jeer ka hadasha transparency-ga in wax walba ay daafurnaan ku jirto bulshada la socotaa de waxay isticmaalaan systemyo software database online baa jira in nidaam xisaabeedka dalka wax lagu xisaabiyo nidaamka caalamiga ee la wada yaqaan waayo waxaan u muuganaysay wixii uu audit soo qoray waa inuu ilaaliyaa hantida ummadda iyo sifaha ay ku baxayso miisaaniyadda waayo baarlamaanku waxa uu mas'uul ka yahay waxa weeyaan shacabku iyaga doortay baarlamaanka waxay ku hadlayaan afkii shacabka weeyaan miisaaniyadda dalka laga saaro kharashaadka aan daruuriga ahayn ama laga maarmaanka ahayn maxamed yuusuf cabdilaahi maxamed wardi TV-ga qaranka Burco.